waxaad haysataa 5 lo ah iyo 2 dameer iyo hal ri ah imsa lugood baad leedahay imsa lugood baad leedahay macnaheedu weydiisay mise dameerihi baad weydiisay salaadii baad weydiisay saddexda bilood guga waxaa loo yaqaanaa saddexda bilood doogaada saddexda bilood guga maxaa Soomaali lagu yiraahdaa Soomaali marka la isku daro maxaa weeyaan soondheer iyo Ramadaan iyo Soonfur saddex bilood ka koobay ee gugu sida la wada og yahayba saddexda bilood waxa jira magacyo u astaysan oo Soomaaliga loo yaqaano isku day karan baa la yiraahdaa karan doogaad baa la yiraahdaa doogaad waxaad sheegtaa wax duhurkii aan iraahdo subaxii ku socda 4 lugood duhurkiina ku socda 2 lugood maqribkiina ku socda 3 lugood waa dabangaalaha kan gorlaha sanadkee baa lagu faryeelay muslimiinta bisha Soom markii koowaad aad guulaysato iyo markii ugu horeysay warbaahin baa kamarada ima qaban noloshay markii koowaad aroortii 4 lugood bulee casarkiina 3 lugood 2 lugood oo laba laabtayba waxa waajib malmaysi ma السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتها بني لهانتين بدا وضيال ملك الصوت كجوجتان دافع عالمك واحد كسر دواتن برامج كني جرأ أو كقوليشوا تضبط كستاسي توسيدين كجي ماذا مقل مقبهية ديجان كالصومالي دي صار تي في برامج كجرأ أو كقوليسا يام بد أقوم كرورسي يام بد داليس كبوشرة إسلام كان عنده سؤال كويدينو شعب كمجال ده تشيكتيجا هذا بدا وضيال بالتضبط كان يوعده رنا كلا قبصدي بلشوين تمجال ده تشيكتيجا يسيابي كلا دونا وجسوا شوابين سؤال أنا ويديني أي نصو وضد داونه دبي نيوسكا سو لابنينا سؤالاسي جوابهودنا قدال أيانو كشيغينا داوشو نكس كسو دو برامجka garoo ku guuleysay SRT goreyn magacaaga Jaabir Ibrahim Maxamuud baa la dhahaa Jaabir su'aalan ku weydiinaya su'aalada saxda uga jawaabto waxaad helaysaa bal marnay kugu talagashay warbaahinta SRTV su'aasha ugu horeysan ku weydiinayana waxay tahay af Soomaaliga saddexda bilood ee guga maxaa loo yaqaanaa af Soomaaliga afka Soomaaliga maxaa lagu dhahaa leedahay afka Soomaaliga xagaa iyo dayr iyo waxa jira saddex bilood oo gu ah saddex bilood jilaal sida la wada og yahay marka saddexda bilood ee gugu waxa saddexda bilood uu ka koobay waxay leeyihiin magacyo gaar ah oo lagu aqoonsado ha marka af Soomaali maxaa lagu yiraahdaa Soomaali waxa lagu dhahaa dayr waxa lagu dhahaa kaliil iyo gamashi yaa lagu yiraahdaa hagaag walaalo su'aashaas kama jawaabin su'aal kale ku weydiinaya fursad kale ku siinaya waxa aad sheegtaa buurta oo Allah subhanahu wa ta'ala uu ku dhaartay Quraanka Kariimka dhexdiisa buurta ku dhaartay Ilaahay Quraankiisa ma garanayo taas hagaag walaalo aad baan kaaga mahadcelinaya ka qaybgalkaaga toddobaadee kala soo laabo aad baan kaaga mahadcelinaya thank you so much ku soo dhaw barnaamijka garoo ku guuleysay SRTV ugu horeyn magacaaga Cabdi Xakan Adris waa salaamaya TV-ga caalamiga SRTV iyo dhammaan shaqaalaha oo dhan soo dhawaada aad baad mahadsan tahay su'aalan ku weydiin doonaa su'aalada saxda uga jawaabto waxaad helaysaa bal marnay kugu talagashay warbaahinta SRTV su'aasha ugu horeysan ku weydiinayana waxay tahay saddexda bilood ee guga af Soomaali maxaa lagu yiraahdaa saddexda bilood ee guga dawaaba go saddex bilood baa jira saddex bilood ku kooban yahay gugu Soomaali marka ku laba saddex sida u jirto baa waxa jira magacyo u astaysan oo Soomaaliga loo yaqaan marka waa maxay noqonayaan go iyo dayr iyo xagaa aad baad mahadsan tahay su'aashaas kuma guuleysay su'aal kale ku weydiinaya waxaad sheegtaa buurta oo Allah subhanahu wa ta'ala uu ku dhaartay Quraanka Kariimka dhexdeeda buurta oo Allah subhanahu wa ta'ala ku dhaartay Quraanka Kariimka dhexdeeda ma garay aad baad mahadsan tahay ka qaybgalkaaga aad baan kaaga mahadcelinaya ku soo dhaw barnaamijka garoo ku guuleysay SRTV ugu horeyn magacaaga magacaygu maxaa Axmed Cabdi aad baad mahadsan tahay su'aalan ku weydiinaya su'aalada saxda uga jawaabto waxaad helaysaa bal marnay kugu talagashay warbaahinta SRTV su'aasha ugu horeysan ku weydiinayana waxay tahay saddexda bilood ee guga af Soomaali maxaa lagu yiraahdaa ama maxaa loo yaqaanaa saddex bilood guga ma garanaysaas hagaag waan ku bedelayaa waxa aad sheegtaa wax kumbaal leh hadana aan bad ka boodi karin wax kumbaal leh hadana aan bad ka boodi karin wax kumbaal leh hadana aan bad ka boodi karin
kumbaal buu leeyahay badna kama boodi karo waxa weeyaan daawuska wax kumbaal haddana aan waa buugga kitaabka ama buugga hubtaa hafaliyo waxaad ka mid noqotay guulaystayaasha toddobaadkan ay abaal marinayso warbaahinta SR TV si aad u aragtay inaad guulaysato aad baan ugu faraxsan inaan guulaysto aad baan masantay SR TV ma ka qayb qaadatay toddobaadii hore barnaamijkan markii ugu horeysay waan ka qayb qaatay markii ugu horeysay iyo guushaadii isku soo hagaagtay marka waa sidee dareenkaaga dareenkii lama soo koobi karo farxad weyn baa maasha Allah inaad ka sii wadaan bulshada aad u adeegsaan hafaliya ku leeyahay toddobaadii kale soo laabo waan kaaga mahadcelinayaa ka qaybgalkaaga ku soo dhawo barnaamijka garo oo ku guulaysay SR TV goray magacaaga magacaygu xuseen maxaa cabdi xuseen su'aalaan ku weydiinayaa su'aalaadda saxda uga jawaabto waxaad helaysaa abaalmarin ay kugu talagashay warbaahinta SR TV su'aasha ugu horreysan ku weydiinayaan waxay tahay saddexda bilood ee guga af Soomaali maxaa loo yaqaanaa ama maxaa lagu yiraahdaa saddexda bilood ee guga waxaa looga yaqaanaa saddexda bilood ee doogaadda saddex magac oo gaar ah ها دي ما بلها عادي magacyadooda miya bilaha sida la wada og yahay waa 12 bilood sanadku saddex bilood waa gu saddex bilood waa jiiraal sidaas si la wada og yahay marka saddexda bilood ee guga magacyadooda sheeg okay bisha koobaad waa abriil Soomaali man ka dhigaa ha okay ma garanayo hagaag su'aashaasi kuma aad guulaysanin su'aal kale ku weydiinaya waxa aad sheegtaa wax kumbaal leh haddana aan bad ka boodi karin wax kumbaal leh oo bad ka boodi karin okay wax kumbaal leh oo bad ka boodi karin may kumbaal ma laha shimbirtu wax kumbaal leh oo bad ka boodi karin ma garanayo aad baad u mahadsantahay ka qaybgalkaaga toddobaadyo kale ku soo laaban ku leeyahay mar kale aad guulaysan doontaa aad baad u mahadsantahay ku soo dhawo barnaamijka garo oo ku guulaysay SR TV goran magacaaga magacaygu waa Salmaan Ibrahim Saciid Salmaan Ibrahim Saciid su'aalaan ku weydiin doonaa su'aalaadda saxda uga jawaabto waxaad helaysaa abaalmarin ay kugu talagashay warbaahinta SR TV su'aasha ugu horreysan ku weydiinaya waxay tahay waxa aad sheegtaa wax subaxii 4 lugood ku socda duhurkiina 2 lugood ku socda maqribkiina 2 lugood ku socda 3 lugood ku socda aan idhaahdo 3 lugood su'aasha ma garanayo ha su'aashood fahantaa waa jawaabta barkeeda subaxii wuxuu ku socdaa waa 4 duhurkiina wuxuu ku socdaa waxa weeyaan 2 maqribkiina wuxuu ku socdaa 3 ma fahmi hagaag waan kuma su'aalahaas maad garanin su'aal kale ku weydiinaya waan ku bedelayaa saddexda bilood ee guga maxaa Soomaali lagu yiraahdaa Soomaali waxa lagu yiraahdaa sambuux iyo soondheer iyo rabadaan marka la isku daro maxaa weeyaan soondheer iyo rabadaan iyo soonfur ha hagaag walaalo su'aalahaas si aad loogu tala galay ama ay ahayd uga maad jawaabin waan kaaga mahadcelinayaa ka qaybgalkaaga toddobaadyo kale soo laabo ku soo dhawo barnaamijka garo oo ku guulaysay SR TV goray magacaaga maxamed cabdi taashirash maxamed su'aalaan ku weydiinayaa su'aalaadda saxda uga jawaabto waxaad helaysaa abaalmarin ay kugu talagashay warbaahinta SR TV su'aasha ugu horreysan ku weydiinayaana waxay tahay waa goorma ama waa sanadkee goorta muslimiinta lagu farad yeelay soonka bisha Ramadaan su'aasha igu celi goorma ayaa muslimiinta lagu faral yeelay in ay soomaan bisha Ramadaan عام الفيل بالله عام الفيل عام الفيل
hagaag walaalo su'aashaas kama jawaabin ama sidii loogu talagalay jawaabta uma bixinin su'aal kale aan ku weydiinayaa waan ku bedelayaa waxa aad sheegtaa wax subaxii 4 lugood ku socda duhurkiina 2 lugood ku socda maqribkiina 3 lugood ku socda kama garanayo wala waxa duhurkii 3 lugood ku socda aroortii ama subaxii wuxuu ku socdaa waa 4 lugood duhurkiina wuxuu ku socdaa 2 lugood maqribkana 3 lugood kama garanayo wala ma garanayo aad baan kaaga magacilinayaa ka qaybgalkaaga toddobaadyo kala soo laabo mar kale ayaan ku rajaynayaa inaad guulaysato ku soo dhaw barnaamijka garoo ku guulaysay SR TV goreyn magacaaga magacayga waa Nuur Cabdi Ismaaciil ugu dhow walaal Nuur Cabdi Ismaaciil codkaad kor igu qaadi Nuur su'aalan ku weydiini su'aalahaas hadda saxda uga jawaabto waxaad helaysaa abaalmarin kugu talagashay warbaahinta SR TV su'aasha ugu horeysan ku weydiinaya waxay tahay saddexda bilood ee guga af Soomaaliga maxaa loo yaqaanaa may geelna ma raacin adna ma raacin ma garanayso su'aashan laakiin maadaama Soomaali nahay soo waajib nagu hayna af Soomaaliga barano aad laakiin igu adagti ma wallahi English ma ku sheega ma garanay maxaa sababay inaynu Soomaaligeena wax ku garan weyno Soomaaliga si dhamaanayo haddana English kugu weydiiye ka waran taas caad waan garanay laakiin hagaag su'aal kale ku weydiinaya su'aashaasi kumaanad guulaysanin waxa aad sheegtaa wax kunbaal leh haddana aan bad ka boodi karin wax ku baan loo bandaan ka boodi karin kunbaal uu leeyahay haddana bad kama boodi karin nota ciyaalnimada la weydiin jiro waa kitaabka weyn ciyaalnimada la weydiin jiro aad iyo aad kitaabkan ku adkaysanaya taasan ku adkaysanaya hambalyo waxaad ka mid noqotay guulaystayaasha toddobaadkan nasiibka u helaya inay abaal mariso warbaahinta SR TV sidoo aragtaa markaa inaad guulaysato aad iyo aad baan mahad celinayaa SR TV waxaan leeyahay hore socdaan leeyahay intan ka badan baa insha Allah hadda ka hor ma ka qayb qaadatay barnaamijyada in badan waan ka qayb qaatay laakiin in badan aad iyo aad markaa waxaad taliya tusaale noo reebaysaa waxaan idin reebayaa waxaan leeyahay bulshada soo adeegaysan communication ama isgaarsiinta gaarsiinaysan aad iyo aad baad mahadsantiin intan ka badan baa hore socdaan leeyahay aad iyo aad baad mahadsan tahay mar kale aan hambalyo ku leenahay ku soo dhaw barnaamijka garoo ku guulaysay SR TV goreyn magacaaga magacayga waa Bedel Cabdullaahi Maxamed bedel su'aalan ku weydiinayaa su'aaladaas saxda uga jawaabto waxaad helaysaa abaalmarin kugu talagashay warbaahinta SR TV su'aasha ugu horeysan ku weydiinayaan waxay tahay saddexda bilood oo guga maxaa loo yaqaan af Soomaali saddexda bilood ee guga waxaa loo yaqaanaa de guun baa loo yaqaanaa saddex bilood buu ka kooban yahay gugu sida la wada og yahayba saddexda bilood waxa jira magacyo u astaysan oo Soomaaliga loo yaqaano isku day karan baa la yiraahdaa karan baa la yiraahdaa dogaad baa la yiraahdaa dogaad hagaag walaalo su'aalaas kuma aad guulaysan su'aal kale ku weydiinaya fursad kale ku siinaya waxaad sheegtaa wax duhurkii aan iraahdo subaxii ku socda 4 lugood duhurkiina ku socda 2 lugood maqribkiina ku socda 3 lugood waa tabangaalaha su'aasha kuugu celiyo su'aashood fahantaa waa jawaabta barkeeda waxaan ku yiri waxa aad sheegtaa wax subaxii ku socda 4 lugood duhurkiina ku socda 2 lugood habeenkii ama maqribkiina ku socda 2 lugood waa kan gorla mid hagaag walaalo aad baan kuugu mahad celinayaa ka qaybgalkaaga toddobaadyo kala soo laabo marka aad guulaysanaysaa ku soo dhaw barnaamijka garo oo ku guulaysay SR TV goreyn magacaaga ku dhaw walaal maxamed su'aalan ku weydiinayaa su'aalada saxda uga jawaabto waxaad helaysaa abaalmarin kugu talagashay warbaahinta SR TV waxaad ii sheegtaa saddexda bilood ee guga maxaa Soomaali lagu yiraahdaa ama maxaa loo yaqaanaa waxaa lagu dhahaa son Ramadan soonfur iyo arafa hagaag walaalo su'aashaas kumaad guulaysanin fursad kale aan ku siinayaa su'aal kale aan ku weydiinayaa waxaad sheegtaa goorma ayaa lagu farad yeelay muslimiinta soonka bisha Ramadaan waxaa lagu farad yeelay hijriyadii bisha labaad hijriyadii bisha labaad
hagaag walaalo oo kaaga mahad celinaya ka qaybgalkaaga todobaadii kala soo laaba ku leeyahay ku soo dhaw barnaamijka garo oo ku guuleysay SRTV wareer magacaaga ay sheeg xasan dubad ibraahim xasan su'aalaha ku weydiinaya su'aalaha saxda uga jawaabto waxaad helaysaa balmarnay kugu talagashay warbaahinta SRTV su'aasha ugu horeysan ku weydiinayaan waxay tahay sanadkeeba lagu faryeelay muslimiinta bisha soonka sanadkeeba lagu faryeelay muslimiinta bisha soonka ama ramadaan bisha mawlid sanadkeeba tiri aan kugu celiyo su'aasha goorma ayaa lagu faral yeelay muslimiinta soonka bisha ramadaan ama sanadkeeba lagu faral yeelay 1932 1932 hagaag su'aashaasi kama jawaabin su'aal kale ku weydiinaya xasan waxaad haysataa hadda u fiirso waxaad haysataa 5 lo ah iyo 2 dameer iyo hal ri ah imsa lugood baad leedahay imsa lugood baad leedahay macnaheedu aad weydiisay mise dameerihi aad weydiisay salloodii baad weydiisay 5 lo ah tirsa hada waa 5 lo waxaad leedahay 5 lo ah 2 dameer iyo hal ri ah marka adigu imsa lugood baad leedahay imsa lugood baad leedahay 2 lugood baan leeyahay su'aasha lug baad weydiisay imaad weydiin lo'dii lo maad leedahay iyo ar maad leedahay 2 lugood baan leeyahay xasan su'aal shu say u dhameystirantaan ku weydiinayaa eeg waxaad haysataa waa 5 lo ah 2 dameer iyo hal ri ah imsa lugood baad markaa leedahay 2 lugood baan leeyahay 2 lugood baan leeyahay hambalyo waxaad ka mid noqotay guulaystayaasha toddobaadkan nasiibka way helayeen abaal mariso warbaahinta SRTV si aad u aragtay inaad guulaysato ma santi waan ku faraxsanahay inaan guulaysto waa markii ugu horeysay waka guushaadii isku soo hagaagtay markii ugu horeysay guulaysatay si aad u aragtaa markaa waxaan u arkaa dareenkaygu aad su'aalo badan oo kale inaan ka jawaabi lahaa waka waxaad taliya tusaale noo reebaysaa annaga waxaan reebayaa inaad maaragtay dadka su'aalahaad weydiinaysaan kuwa adag inay noqdaan oo maaragtay ka farxisaan dadka waliba markii ka jawaabaan waka hambalyo xasan aad kuugu hambalyeynaya waan ku faraxsanahay inaad toddobaadkan ka noqotay guulaystayaasha abaal marinaysa warbaahinta SRTV marar kale soo laaba ku leeyahay ku soo dhaw barnaamijka garo oo ku guuleysay SRTV wareer magacaaga magacayga Daahir Axmed Muuse la dhahaa waan ku soo dhawahay su'aalaan ku weydiin doonaa su'aalaha saxda uga jawaabto waxaad helaysaa balmarnay kugu talagashay warbaahinta SRTV su'aasheeda ugu horeysa ku weydiinayaan waxay tahay maxaa Soomaali loo yaqaanaa 3 bilood ee guga waxaa loo yaqaanaa sarmaweydo candaqoys iyo guyar ma hubtaa waan hubahaa hambalyo waxaad ka mid noqotay guulaystayaasha toddobaadkan ay abaal marinaysa warbaahinta SRTV si aad u aragtaa inaad guulaysato aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah waa su'aalo Soomaaliga in la barto aad bay u fiican tahay dadkana waxaan dhihi lahaa waxyaabaha Soomaaliga wax walba inaad ku barataan aad maadsantahay hadda ka hor barnaamijka waad ka qayb gashay mise waa markii ugu horeysay waan ka qayb galay kumana guulaysan laakiin hadda marta kor hambalyo ayaan ku leeyahay hambalyo ku soo dhaw barnaamijka garo ku guuleysay SRTV wareer magacaaga sheeg magacayga waa weli Cabdinuur Maxamed weli su'aalaan ku weydiinayaa su'aalaha saxda uga jawaabto waxaad helaysaa balmarnay kugu talagashay warbaahinta SRTV soo sheego horeysan ku weydiinayaan waxay tahay maxaa loo yaqaanaa af Soomaaliga 3 bilood ee guga 3 bilood ee guga tayr iyo gu iyo jilaal 3 bilood ee guga حلو 3 bilood guga waxa loo yaqaanaa dayr son iyo may sako iyo safar iyo sadataal way saddexaas loo yaqaan hagaag walaalo su'aashaasi sida loo baahnaa uga ma jawaabin su'aal kale ku weydiinaya waa ku bedelayaa waxa aad sheegtaa buurta oo Allah subhanahu wa ta'ala uu ku dhaartay quraanka kariimka dhexdeeda waa Safiya Marooy buurta Allah ku dhaartay subhanahu wa ta'ala waa Safiya Marwa
hagaag walaalo aad baan kaaga macalinay ka qaybgalkaaga toddobaadii kala soo laaban ku leeyahay mar kale aad guulaysan doontaa ku soo dhawo barnaamijka garo oo ku guulaysay SRTV goreyn magacaaga axmed shukri xasan axmed shukri axmed su'aal ku weydiinaya su'aalada saxda uga jawaabto waxaad helaysaa abaalmarin kugu tala gashay warbaahinta SRTV su'aasha ugu horeysa ku weydiinayaan waxay tahay saddexda bilood ee guga af Soomaali maxaa lagu yiraahdaa guuba lagu dhaadey mid walba magac u gaar ah ay leedahay af Soomaaliga ku astaysan tahay marka su'aashaas ma garanaysaa magac jamac ay leedahay may magaca jamac ah sida la wada ogyahay waa guu soo maaha ama xil roobaadka de waa guu laakiin se waxa jirta saddexda bilood ay ka kooban tahay magacyo u gaaray wada leeyihiin marka ii sheeg magacyadooda hooye son iyo soonfur iyo sidataaldi san ku shaaf Soomaali hagaag axmed su'aashaas kama jawaab su'aal kale ku weydiinaya fursad kale ku siinaya waxaad sheegtaa wax subaxii ku socda 4 lugood duhurkiina ku socda 2 lugood maqribkiina wuxuu ku socdaa 3 lugood afar lugood buu ku socdaa duhurkiina 2 lugood buu ku socdaa maqribkiina 3 lugood buu ku socdaa waxaan garaarac weyn aan garaarac aad baan kaaga macalinay ka qaybgalkaaga toddobaadii kala soo laabo mar kale aad guulaysanaysaa ku soo dhawo barnaamijka garo oo ku guulaysay SRTV goreyn magacaaga sheeg walaal magacaygu waa daahir cabdiraabi daahir su'aalan ku weydiinaya su'aalada saxda uga jawaabto waxaad helaysaa abaalmarin ay kugu tala gashay warbaahinta SRTV su'aasheeda ugu horeysa ku weydiinayaan waxay tahay af Soomaali maxaa loo yaqaanaa saddexda bilood ee guga saddexda bilood ee guga walaal saddexda bilood ee guga saddexda bilood oo la isku qabtay soo guma aha waxay jira 1 2 3 siday u tahay ba magacyo ay u astaysan yihiin Soomaalida ay u taqaanaa jirta markaas maxay noqonayaan saddexda bilood ee guga waxay noqonaysaa tema bilaha caadiga magacyadooda miya saddexda bilood guga roobku daa miya waa saddexda bilood guga magacyadooda ay sheegaysaa saddexda bilood guga kaadi waan sheegaya kaadi ma kaadi hada dajin ansarta lagu degdegay walaal saddexda bilood guga waxaan u malaynayaa in ay tahay Jamaadul Awwal Jamaadul Aakhir Rajab ya de waa Jamaadul Awwal waa 1 2 3 weeyde de waa sheegtay waa marka ansartay waa 1 2 3 Jamaadul Awwal Jamaadul Aakhir Rajab hagaag aad baad ugu baahsantahay su'aashaasi kama jawaabin su'aal laakiin waa ku bedelaya su'aal kale ku weydiinaya waxa aad sheegtaa goorma ayaa lagu faral yeelay muslimiinta soonka bisha Ramadaan walaal waxa lagu faral yeelay sanadkii 2 hijri soo malaynay sanadkii 2 hijri ma waan ku adkaysnay jawaabta waxa muslimiinta lagu faral yeelay sanadkii 2 hijriga waan ku adkaysanayaa hambalyo waxaad ka mid noqotay guulaystayaasha toddobaadka nasiibka u helaya inay abaal mariso warbaahinta SRTV si aad aragtaa marka inaad guulaysato walaal aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay hambalyo marka dhammaan waxaan leeyahay asxaabtaydana waxaan idin rajaynayaa sidoo kale inaad ka faa'iideysataan su'aasha cidii garanaysana way garanaysaa cidaan garanayna inay ka faa'iideystaan idinkana waxaan idin leeyahay thank you ma markii kugu horeysay ka qayb qaadataa mise marar badan oo kale aad ka qayb qaadataa barnaamijyo badan oo aan waayay baa jiro oo aan isku dayay laakiin in badan oo ka dhex qaaday Naba TV waqti ay shaqeynayso insha Allah marka waan idin mahadcelinayaa SRTV hagaag aad baad u mahadsan tahay markii kugu horeysay aad guulaysato waliba iyo guushaadii isku soo hagaagtay markaas waa sidee wallahi bil barakaysan oo ciid iyo nimco oo lama soo goobi karo dhammaan waxaan leeyahay bishan aan ku jiro iyo bisheeda ka inaan ilaahay barwaaqo iyo nabad nuu gaarsiiyo idinkuna barnaamijka si fiican aad u wadaan horay u socdaan ilaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay hambalyo ku leeyahay toddobaadii kala soo laabo hambalyo
barnaamijka garaha ku guuleystay SR TV goran magacaaga maxamed cabdi maxamed cabdi maxamed su'aalo ku weydiinaya su'aalada saxda uga jawaabto waxaad helaysaa abaalmarin kugu tala gashay warbaahinta SR TV su'aasheeda ugu horeysa ku weydiinayaan waxay tahay saddexda bilood ee guga maxaa loo yaqaanaa af Soomaali waxaa la yiraahdaa dirac iyo karan iyo dayr ma xagaadi wasda ya 12 bilood laakiin dayrtu miyay ka mid ahay saddexda bilood ee guga kaliya baa laga rabaa xagaa baa la yiraahdaa mid iyo dirac iyo karan marka ugu horeysa waa diraac oo markuu cirku daatade marka labaadna waxa weeyaan marka dhulku uu aad u fiican yahay waxa la yiraahdaa karan oo imika kale ku jira hadii waa gugunta marka saddexaadna waxa la yiraahdaa waa xagaa oo dhulku yar engaga su-aashaasi sidii la rabay ugama aanad jawaabin ay jawaabtu saxda ay ku ahayd xagaag su-aashaasi kuma aanad guulaysanin su'aal kale ku weydiinaya waxa aad sheegtaa buurta oo Allah subxaanahu wa ta'aala ku dhaartay quraanka kariimka dhexdeeda buurta ma garan karo wallahi ma garanay aad baan kaaga mahadcelinayaa ka qaybgalkaaga toddobaadii kale soo laabo inaad mar kale guulaysataan ku rajeynaya waad ku mahadsantahay isku daygaaga ku soo dhawo barnaamijka garo oo ku guuleystay SR TV gorayn magacaaga walaal waan ku dhawahay maxamed cali baa la yiraahdaa maxamed maxamed cali maxamed su'aalaan ku weydiinayaa su'aalada saxda uga jawaabto waxaad helaysaa abaalmarin kugu tala gashay warbaahinta SR TV su'aasha ugu horeysa ku weydiinayaan waxay tahay guga maxaa af Soomaali lagu dhahaa saddexda bilood ee guga maxaa loo yaqaanaa saddexda bilood ee guga macnaha sidaan u naqaan annagu halkaan wadanka joogno bisha ugu horeysa kaliil guba la yiraahdaa ta ku xigtay dhaxda candho qoys baa la yiraahdaa ta u dambaysa qadhin baan dhahaa ama guyar bisha ugu horeysa kaliil guba la yiraahdaa ta ku xigtay candho qoys baa la yiraahdaa waqtiga bartanka ta u dambaysa guyar baan dhahnaa hambalyo waxaad ka mid noqotay guulaystayaasha toddobaadkan nasiibka u helaya inay abaal mariso warbaahinta SR TV waliba su'aal in badan la garan waayay inaad garato wallow aad xabada ugu horeysa aanan hubin laakiin aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay ka qaybgalkaaga hambalyo ku leeyahay sidaad u aragtay marka inaad guuraysato su'aal in badan la garan waayay aad garato si fiican baan u arkaa wallahi way fiican tahay oo inaad dadka loo faa'iideeyay waxyaalihii saas oo kale ah wax meesha ku jira marka si fiican baan u aragsanahay hambalyo ku leeyahay toddobaadii kale soo laabo aad baan kugu mahadcelinayaa ka qaybgalkaaga kusoo dhawo barnaamijka garo oo ku guuleystay SR TV gorayn magacaaga walaal cabdi xakiin waan dhawahay aad buu maasan tahay codka kor baad igu qaaday cabdi xakiin su'aalaha ku weydiinaya su'aalada saxda uga jawaabto waxaad helaysaa abaalmarin ay kugu tala gashay warbaahinta SR TV su'aasha ugu horeysan ku weydiinayaan waxay tahay waxaad sheegtaa buurtu Allah subxaanahu wa ta'aala ku dhaartay quraanka kariimka dhexdeeda wallahi walaal saan filayo waxa weeye waa buurta Turusiina markaan soo daayay صفمية ويقطع والله بس مالكنا نسود ما قرنا بورتا طورو سينا دينا هين ما قرنا يو بورتا طورو سينا دينا هين ما قرنا يو طورو سينا ها hambalyo waxaad ka mid noqotay guulaystayaasha toddobaadkan abaalmarinta way helayeen inay abaal mariso warbaahinta SR TV sidoo aragtaa marka inaad guulaysato wallahi walaal ومركي كوبادن soo istaagay markii aan guuleystay alxamdulillah aduguna aad baad maasan tahay markii koowaad aad guulaysato iyo markii ugu horeysa warbaahin ba kamarad bay ma qaban noloshay markii koowaad ee kamarad ku qabato iyo adigu guuleysay marka waa sidee dareenkaaga wallahi alxamdulillah waxaan de kulay ugu horreyn qof guuleystay waxaan arkaa su'aal fudud oo waajiba in la bartay inaan ku guuleysto ma arkaa waayo quraanka ka mid tahay Soomaa anaga maxaa taliyo tusaale markaan u reebaysaa والله والله horta waxaad moodaa in sidii hawshan nagu cusub tahay waayo sida lagu soo goleeyo aan aragnaa Soomaa dadkeena wali iska dambeeyaan laakiin cilmi baa idinka faa'iideeyay bal ugu wada idinkuna ajri xasanad Allah idinka siiyo aad baan kugu mahadcelinayaa hambalyan ku leeyahay toddobaadii kale igala qayb qaadan ku leeyahay ku soo dhawo barnaamijka garo oo ku guuleystay SR TV goran magacaaga Jamaal Bedel walaal Jamaal Bedel Faarax codka kor baad igu qaaday Jamaal su'aalan ku weydiinaya su'aalada saxda uga jawaabto waxaad helaysaa abaalmarin ay kugu tala gashay warbaahinta SR TV waxaad ii sheegaysaa wax subaxdii 4 lugood leh duhurkiina 2 lugood leh maqribkiina 3 lugood leh ya waxaad ii sheegtaa wax subaxdii 4 lugood leh duhurkiina 2 lugood leh maqribkiina 3 lugood leh
يا قرحة ورا قرحة وين يا هاتي واح صباح دي أفر لغود لغود قرحة ورا قرحة وين hagaag walaalo su'aashaasi sidii la rabay ee uga maana jawaabo su'aal kale ku weydiinaya طيح وين su'aashaasi ka maana jawaabo walaalo mar kale su'aal kale ku weydiinaya waxa aad sheegtaa saddexda bilood oo guga maxaa Soomaali loo yaqaanaa waxaa loo yaqaanaa saddex bilood oo guga bisha u horeysa kaliya loo yaqaanaa bisha ku xigtana waxa weeyaan iyadana aan qoys ta ku xigtana anaga waxa u naqaanaa gamash waa u naqaanaa gamash ya anagu gamash waa u naqaanaa bisha ugu dambaysa marka bisha u horeysa waa kaliil bisha ku xigtana waxa weeyaan aan qoys bisha ugu dambaysana diqim okay walaalo sidii la rabay ugamaad jawaabin hal mid baad ka jawaabtay su'aalahan ee guga aad baan kaaga madcelinaya ka qaybgalkaaga toddobaadyo kale igala qayb qaado inaad guulaysataan ku rajeynaya ku soo dhawo barnaamijka garoo ku guulaysay SRTV waran magacaaga walaal Muxiidiin baa la dhahaa Muxiidiin codkaad kor igu qaadi su'aalan ku weydiinaya su'aalada si saxda uga jawaabto waxaad helaysaa abaalmarin ay kugu talagashay warbaahinta SRTV su'aasha ugu horeysan ku weydiinayaan waxay tahay saddexda bilood ee guga maxaa Soomaali loo yaqaanaa saddex bilood oo guga Soomaali maxaa loo yaqaanaa عند قيس يا كليل يا جوير تو دمبيس جوير بالله توهرس عند قيس توهرس كليل بالله تكون حكتين عند قيس تكون حكتين جوير بالله جوير hagaag su'aashaasi sidii la rabay uga maad jawaabin su'aal kale ku weydiinaya waa ku bedelaya waxaad sheegtaa wax aroortii ama subaxii 4 lugood leh duhurkiina 2 lugood leh maqribkiina 3 lugood leh wax maqar aroortii 4 lugood bilee مسرادي عشها يا أرور لقى دقة والسراد بالملة يحوق جدوا هذي وحصل لقوا عليه وكسراد بالملة ماشي الصبح أنا محد جلس عشي أنا محد جلس عصر كي ماشي الصبح أنا محد جلس عشي وأصدمرس مغرب كين عادي ولا شيء مركز سام بالملة يعني سؤال اللي بيدينا يا وحي سحكوا تاي سؤال شيدو jawaabteeda la adaa sheegaya su'aasheeda waxay sax ku tahay aroortii ama subaxii wuxuu leeyahay waa 4 lugood duhurkiina waxa uu leeyahay waa 2 lugood maqribkii ama habeenkiina waxa uu leeyahay 3 lugood aroortii 4 lugood buu leeyahay casarkiina 3 lugood 2 lugood والله بو laabtayba waxa waajib mal ma isma aad waasa tahay oo kaaga celiya ka qaybgalkaaga tusaale kala soo laabad guulaysan doonta ku soo dhaw barnaamijka garoo ku guulaysay SRTV waran magacaaga waan dhaw Cabdullaahi Maxamed Cabdi Cabdullaahi su'aal ku weydiinaya su'aalada saxda uga jawaabto waxaad helaysaa abaalmarin ay kugu talagashay warbaahinta SRTV su'aasha ugu horeysan ku weydiinayaan waxay tahay waxa aad sheegtaa goorma ayaa muslimiinta lagu faral yeelay soonka bisha Ramadaan hijrada sanadkii 64 64 hijrada kun 400 su'aashaasi kuma guulaysanay su'aal kale ku weydiinaya saddexda bilood oo guga maxaa Soomaali loo yaqaanaa waxa lagu dhahaa kaliil عند قيس ما جمشي ما كليل عند قيس جمشي كليل عند قيس جمشي كليل عند قيس جمشي عندنا المقرن يعني walaalo su'aalahaasi kama jawaabin toddobaad kale igala qayb qaado waan kaaga mahad celiyaa ka qalgalkaaga iyo isku daygaaga waa wax weyn ku soo dhaw barnaamijka garoo ku guulaysay SRTV waran magacaaga Cabdullaahi Shacabdi baa la dhahaa Cabdullaahi su'aalan ku weydiin doonaa su'aalada saxda uga jawaabto waxaad helaysaa abaalmarin ay kugu talagashay warbaahinta SRTV su'aasha ugu horeysan ku weydiinayaan waxay tahay waxaad sheegtaa wax subaxii 4 lugood ku socda duhurkiina 2 lugood ku socda maqribkii ama galabkiina ku socda 3 lugood su'aashaas walaal ma garanayo su'aasha ma garanayo hagaag walaalo su'aashaas kumaad guulaysan su'aal kale ku weydiinaya waxaad sheegtaa buurta Allah subhanahu wa ta'ala uu ku dhaartay quraanka dhexdeeda kariimka dhexdiisa
waa dooru siinayna wey hambalyo waxaad ka mid noqotay guulaystayaasha toddobaadkan nasiibka u helaya inay abaal mariso warbaahinta SR TV seed u aragtay marka inaad guulaysato marka aad iyo aad baan u arkaa idinkana aad iyo aad baan soo dhaweynayaa bulshadana waxaan idin leeyahay si fiican baad u wadaan dadaalkiina halkaa ka sii wada idin leeyahay markuu horeysa ka qayb gashay mise marka la ka qayb gashay may hadda korka ma guulaysanin balse marar hore isku day way jiraan hambalyaan ku leeyahay toddobaad kale soo laabo aad baad u mahadsan hagaag daawadayaal waan filayaa inaad ka soo wada bogateen isla markaana aad soo wada aragteen siyaabihii kala duwanaa ay dadkaasi uga jawaabayeen barnaamijkani garo oo ku guuleyso yaa ku guuleystay abaalmarinta ay bixinaysay telefishinka deegaanka Soomaalida ee SR TV yaa aan ku guuleysanin aqoon kororsigaasi iyo waliba su'aalahaasi dabcan waa wada arkayseen toddobaadkan daawadayaal markana aynu u talowno bal su'aalahaasi aanu shacabka weydiinaynay iyo jawaabahooda iyo sida ay saxda ay ku noqonayaan su'aasha koowaad ee toddobaadkan daawadayaal haddii aan soo qabto waxay ahayd waxa aad sheegtaa saddexda bilood ee guga maxaa af Soomaali lagu yiraahdaa af Soomaaligu dabcan waxa uu leeyahay saddexda bilood maalmo magacyo u astaysan oo ay u yaqaaniin dadka Soomaalidu markaas maxay ku noqonaysaa ayay ahayd su'aashu jawaabtuna daawadayaal haddii aanu bixino sida ay saxda ku tahay wada arkayseen siyaabaha kala duwan ay uga jawaabiyeen jawaabtu waxay sax ku noqonaysaa bisha koowaad waxa la yiraahdaa sarmaweydo bisha labaadna waxay ahayd candaqoys bisha saddexaadna waxay ahayd sidoo kale guyar waan filayaa inaad su'aalaha jawaabahaasi aad wada haysaan waxaana sidoo kale rajaynayaa inaad ka faa'iideysataan maadaama af Soomaaligeenu hodan yahay in la barto oo la kor loo qaado af Soomaaliga barashadiisa dabcan waa mid muhiim ah su'aasha labaad ee toddobaadkan daawadayaal waxay ahayd goorma ayaa lagu farad yeelay muslimiinta soonka bisha Ramadaan jawaabtuna daawadayaal waxay sax ku noqonaysaa waa sanadka labaad ee hijriyada ayaa dabcan muslimiinta lagu farad yeelay su'aasha saddexaad ee toddobaadkan daawadayaal waxay ahayd waxa aad sheegtaa buurtu Allah subhanahu wa ta'ala ku dhaartay Quraanka Kariimka dhexdiisa jawaabtuna daawadayaal waxay sax ku tahay waa duur su'aasha afraad ee toddobaadkan daawadayaal waxay ahayd waxa aad sheegtaa wax subaxii 4 ku soconaya duhurkiina 2 ku soconaya maghribkiina 3 ku soconaya wada arkayseen dabcan siyaabaha kala duwan ay uga soo jawaabeen jawaabtuna waxay sax ku noqonaysaa waa dadka marka la leeyahay subaxii waxa uu ku socdaa 4 waa marka uu yar yahay uu gurguuranayo waxa uu ku socdaa waa labada qamcood iyo labada lugood wuuna gurguurtaa dabcan marka la leeyahay duhurkii 4 ku socda dabcan waa marka uu socod qaado oo hana qaado oo qofku ilaa inta uu ka gaarin waxa uu ku soconayaa labadiisa lugood saddexaad ee ahayd maghribkii 2 ku socda waa markuu qofku daa noqdo weynaado waxa uu cuskadaa ama uu irkadaa aan idhaahdo waa usha markaas labadiisa lugood iyo ushaasi ayuu ku soconayaa sidaas ayay jawaabtu sax ku tahay oo dadka bilaadanka su'aasha shanaad ee toddobaadkan daawadayaal waxay ahayd waxaad sheegtaa wax kumbaal leh hadana aan bad ka boodi karin dabcan wada arkaysa siyaabaha kala duwan ee shacabka magaalada Jigjiga ay uga jawaabeen jawaabtuna waxay sax ku noqonaysaa waa boogta ama kutubta waxay leeyihiin baalal badan balse ma duuli karaan jawaabtaasina sidaas ayay sax ku tahay waan rajaynayaa inaad wada haysataan su'aasha lixaad ee barnaamijkeena ugu dambaysa garo oo ku guuleysana toddobaadkan waxay ahayd waxaad haysataa 5 lo ah 2 dameel iyo hariya markaas imisa lugood ayaad leedahay ayay ahayd su'aashu dabcan siyaabo kala duwan ay bulshada uga soo jawaabeen jawaabtuna waxay sax ku noqonaysaa waxa aad leedahay 2 lugood imisa ayay leeyihiin laguma dhihin daawadayaal waxa lagu yiri imisa lugood ayaad adigu leedahay markaas jawaabtu waxay sax ku noqonaysaa waa 2 lugood su'aashaasna mid sarbeeba ayay ahayd dabcan wana rajaynayaa in hadii su'aalahaas mar kale ay idin soo noqoto inaad insha Allah ka jawaabi doontaan sideedana aad halkeeda dhigi doontaan hagaag daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan ee toddobaad kasta hal mar aan ugu kulano barnaamijka garo oo ku guuleyso intaas ayaanu toddobaadkan ku soo afmeeraynaa waan ugu hambalyeynaa intii toddobaadkan ku guuleysatay hadiyadaas ay bixinaysay telefishinka deegaanka Soomaalida ee SR TV intii kale ee garan weydina waxaan rajaynayaa inay dhamaantiin aqoon kororsi inoo noqon doonto su'aalahan haday mar kale soo laabtaan waxaan rajaynayaa inay intii aqoon kororsi inoo noqoto aynu sideeda uga jawaabi doono intaas ayaanu ku soo afmeeraynaa barnaamijkeena garo oo ku guuleyso muuqaalkaas quruxda badan leh waxaan ugu mahadcelinayaa walaalkay Maxamed Xaaji Cali sidoo kale qurxinta iyo habeyntaasi waa Nimcaan Gaas sidoo kale barnaamijku waxa idin soo saartay lana socodsiinaysay anigoo Hodan Khalifa qaybtiina gadaal daawadayaal nagaga soo biirtay waxaad ka daawan kartaa barnaamijkan oo dhameystiran wareegida kala duwan ee ku leenahay baraha bulshada toddobaadka xiga intaynu isku weynno barnaamijkan waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo amaan Allah